السلام عليكم أصحابي وسلامتين dhammaantiin meel walba dunida ka kala joogtaan waa anigoo Mo ah iyo mar kale barnaamijkeeni filimada cusub filimka idii haya maanta ama idii soo deyn doona af Soomaaligiisa waa filim weyn waa filim Telugu ah Southern India waa filim blockbuster ka noqday dad badan ka heleen waa filim dagaal iyo cil iyo qiso iskugu jiro magaciisa waa Dazara intaana filimka gudaha galeen qaabka u soo daayay filimka waa qaab linki aan ah waxaan soo daayaa muuqaal yar aan ku sharaxayo filimka aan markaas soo deyn rabo sida ka warqabtaan YouTube lama soo gelin karo filim cusub soo markaa waxaan sameeyaa muuqaal yar ayaan soo daayaa muuqaalkaas meeshiisa hoose commentiga waxaan dhigaa filimka linki ahaan ah oo markaa ku dhufatay filimka oo Soomaaliya ku geenayo dadka intooda badan way ka warqabaan laakiin qaar kan ugu cusub aan ka warqabin sidaas ay ogaan doonaan inta kadib filimka idii hay maanta magaciisa waa Dazara waa filim weyn waa filim qiso iyo dagaal ah filimkan wuxuu soo baxay 3 March 2023 waxaa director-ka Sarikaad Adela waxaa qisada qoray isla Sarikaad Adela waxaa producer-ka Sudha Kumar Jarikari waxaa sameeyay shirkad caan ah Sari Lakshmi Venkateshwar Cinema la dhaho sidoo kale waxaa qayb ka ah Netflix filimkan waxaa ku baxday 65 karoor ilaa haddana wuxuu kor u sii dhaafay 180 karoor waa filim Telugu ah oo soo baxay luqadda Telugu waxaa wada actor weyn oo ay dad badan jecel yihiin filmaantiisa la dhaho Nani filimkan waxaa wada actorin horkacay Nani Karti Suresh Samur Kani Dikash Shetty Shine Tama Sai Kumar Barna Shama Zarina Wahab Gali Boy iyo dhowr actor oo kale filimkan waxaa loo qiimeeyay siyaabo kala duwan dadka intooda badan ka heleen shirkadaha filimada qiimeeyeen aad bay u qiimeeyeen Telugu film bid waxay ku qiimeysay 5/3 Grade and Raw waxay ku qiimeysay 5/3 1 2 3 Telugu waxay ku qiimeysay 5/3 IMDb waxay ku qiimeysay 10/7 Times 70 waxay ku qiimeysay Grade and Raw waxay ku qiimeysay 5/3 dadka filimkan daawaday ee journalistiyaashii filimkan daawaday ee qiimeeyay qaarba waxay ku sheegaan si qaar waxay dhaheen filimkan wuxuu dib noo soo xasuusiyay waayihii hore ee jaceylka iyo saaxiibtinimada iyo in la isku dhiman karo ee qiimaha sameeysay si kasta ahaataba qisada filimka waxay qosaysaa saddex qofood laba wiil oo saaxiibo ah iyo gabar noloshooda siyaasadii iyo gobolkooda waa meel yar oo tuulo ah jaceylkoodii iyo waa qiso aad u macaan oo filaya inaad ka heli doontaan mar raba inaad idin kor dhaco halkaas haddaan kusoo koobo falfalada filimka inkii filimka dhammaystiran waxaan gelin doonaa muuqaal meeshiisa commentiga ay ku qoran tahay filimka maanta oo aan pin dhahay usoo kormari doono commentiyada mar labaad ku celiyo filimkan hadda ka hadlayay sharaxayay oo Soomaali ah oo dhammaystiran waxaan gelin doonaa muuqaalkan meeshiisa hoose commentiga maadaama filim cusub aan toos loo soo gelin karin comment waxaa ka fiirisaa comment ay ku qoran tahay filimka maanta ku dhufo commentigaas kadib waxaa arki doontaa linki meesha ku jira linkiga ku dhufo wuxuu toos ku geyn doonaa filimka mar saddexaad haddaan ku celiyo muuqaalkan filimkiisa Dazara la dhaho oo af Soomaali ah waxaa ka heli doontaa filim cusub ah muuqaalkan meeshiisa hoose ee commentiga lagu qoro comment ay ku qoran tahay filimka maanta ku dhufo kadib waxaa arki doontaa linkigaas ku dhufo filimku toos ku geyn doonaa qofkii aan fahmin wuxuu u weydiin karaa meesha commentiga ayaan ugu sharxi doonaa mar kale waxay igu codsanayaan like tiliga ilowin mar kale iyo maalin wanaagsan sidaas iyo nabadgelyo enjoy the movie We are Somalians, we are Africans, we are Somalians, we are Africans. Our